su-aasha labaad shaqo waxa weeyaan caruur baan dhalay, caruur waaweyn baa ii joogto. Marka caruurta birthday iyo waxaas bay gaalada ka arkaan, bedelka birthdayda arkayaan. Haddii birthday si yaraa oo wanaagsan loogu leexiyo, lacagtii birthday ku dhigan lahayd la dhaho dadka masaakiin ku sadaqayso, oo xilliga birthdayda ay ku aadan xilliga ciyaarayaal iyo waxaas samayn lahayn ha la soomo oo ha la tukado la dhaho, oo dhankaas loogu leexiyo, ma noqonaysaa bidco oo lagu soo kordhiyo diinta? wax saas camal ma noqonaysaa mise waa khayr un? maya bidca maaha, waa jira culamo dhahaya, laakiin anaga markaan fiirinay aan baxi la fiiga culamo badan oo mucaasiriin markay arkeen, khaasatan waa laga yaaba culamada aan wadamada Yurub joogin, dhibka ilmaha daamijka gaaraya maskaxda iyo inay la dhuntaan beertigooda meel kale ku samaystaan, ay u arkaanba islaamka inuu xirxiray. waxaan nidhi hala islaameeyo. nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin isniin uu soomay, markii la weydiiyey maxaa u soomaysa wuxuu yidhi daaka yowma wulidtu fii, maalinkaa dhasha waa yidhi. marka waxaa halkaas cad maalinka adduunyo ka timi waa nicmo weye, nicmo oo shukrigeeda kugu waajibo weye. marka shukriga in la bara ilmaha sanad kastana yidhaaho sanadkan waa sanadkaa dhalatay, ilaahay ku shukri. maxaa samaynaa hadduu qof weyn yahayna inuu soomo, hadduu ilma yar yahayna in lacag la siiyo oo yidhah sadaqay, shukulaad u gad xataa dadka saxaabada wax sii, laa ba'sa biha. waxa weeye in la islaamadeeyo waa laga hadlay, culamo badan aan banaysay. aniga nafsigay ra'yigaas ayaan qabaa oo ah in waxa nabiga calayhi salatu wasalaam qofka markuu wax ka reebo bedel uu siinayo, bedel in la say. maxaa yeelay khaasatan ilmaheenaan Yurub joogo, haddaan bedel aan siinin oo islaamkana uu banaynayo oo aad caburisid, dhib weynaa ka dhacayo. waa laga yaabaa dadka dowladda islaamka oo culamada joogta inay u fatwooto in arrintaas ay gelin, xaqayna u leeyihin. maxaa yeelay alfatwa tataqayar fi taqayur alazmaan, masaladan masale qaabil e waay. maxaa yeelay masalada bidcada waa idaafiyada ah, waa khilaaf ka taagan culamada weligood jiri jiray. marka waxaan leeyahay caruurta yaa la caburinin, haddaa caburisaana banaanka iyo dumar saaxiibadooda ay la samaysanayaan, asagoo gilti ah oo dembi dareemayo samaysanaya. waxaa wanaagsan marka waxa bannaan in loo sheego. saan sheegnay nabiga calayhi salatu wasalaam wax markuu dadka ka reebo, khaasatan waxay dadka ku camal falaan oo u sahlan, markuu u sheegay bedelkeeda uu sheegi jiray. xadiiskii bilaal oo timirtii labada suus ku bedelaya hal suus, uu yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam kusoo bedelay, wuxuu yidhi caynu riba waay. laakiin maxaa nabigu meesha riba ku dhacday bilaalo keliya lama dhihin, bal wuxuu yidhi bicir radii'a, gadow yartan xun ka bacdi halka tan kusoo gado wey uu ku tilmaamo oo ribada looga bixi karo. macnaha haddaad ku bedelatid ninka dahablaha ah, hadda gabadha dahabka bedelanayso, hadday tiraa kan isaar lacagta ku siinaya, ribay ku jirtaa. hadday tiraa kan iga gad, ee markay soo qaadato ay kan kale ka gadato, nabiga noo sheegay calayhi salatu wasalaam sida nabigu uu tilmaamay badilkaas wey.